runtii ilaahay ma iskala magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Axmed maanta ka qalin jebinayo jaamacad islaamiya qaybta ama kulliyadda ash-shariica wal qaanuun qismiga ash-shariica al-qaanuun qism ash-shariica qaybta qaanuunkiisa runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii qalin jebino hore soo maray middan way iga farxad badan tahay leena waxaan ka baxay ayaa wuxuu yahay wax diin ah khalfiye diin leh aniga waxaan ahaa markii horeeto ardadii ka baxday iskuulka al-xigma kadib jaamacadda suudaan waxbarashada ka heshay jaamacadda afriqiya alcaalamiya kulliyadda kombiyuutar ka baxay kadib 2010 waddan ku soo laabtay halkaas markaa reer ku yeeshay gabadha maanta lamaanka isla qalin jebinayna deeqay Ibrahim dhaqan aan ku kulannay kadib waxaan aaday Malaysia ayaan aaday runtii Malaysia ayaan ka soo qaatay markaa masar ka soo qaatay ka soo laabtay waddanka macallin ayaan noqday jaamacado badan oo ilaa 7 gaaray waddanka waa ka shaqeeyay macallin waan ka noqday hadeertaan aan hadlaa ilaa 4 jaamacadood waddan ku taalo ayaan macallin ka ahay waxa kale oo kamid ah qodobada aad ii saameeyay lamaankayga marka ayadana macad sunna dhiganaysay oo aan dhiirigelisay aan uga dhigo bal in mar ka hareysay mar qaadanaysay inaan dhiirigelin uga dhigo dhaho walaalay hadaad jaamacada macad sunna dhamayso jaamacad islaamiya ayaan ku geeyin doonaa insha Allah taala sidii ayaan ayadana kula dhiga jaamacad islaamiya kula dhigan doonaa ku iri ayadana qodob kale ay ahayd sidoo kale waxaan runtii mar tagi jiray macad masjidka al-hidaaya mar ayaan tagi jiray jamcooyinka kaleeto waxaan ka dhageysan jiray khudbooyin maalmaha kamid ah waxa ninka hadlay hadalkiisa aad u qiimo badnaa aan arkay waxa ninkaasna meesha ka hadlay waa maamulaha jaamacadda al-hidaaya aad u soo jeetay ninka ninniyow aad u runtii hadalkiisa qiimo igu lahaa qodob kale ayadana ahayd qodobadaas marka la isku dardaro marka waxay igu dhalisay inaan kulliyadii gabadhii markay dugsiga ay macadkii dhamaysay isla bilowno jaamacadii isla bilowno 2018 ay ahayd xilligaas inaan jaamacadii bilowno alxamdulillah jaamacadii waan bilownay runtii waqti badan ay u baahnayd caqabado badan ay lahayd waqti badan wax badan ay u baahnayd ilaahay mahadiis runtii ilaahay mahadiis maanta way noo dhamaatay aad baan u faraxsanahay runtii ayadana waxay u soo kufaakacnaa waxaan soo xilliyada noogu adkaa daraas akhrinta iyo waxyaalahaas ayaa kamid ah runtii aad iyo aad bismillaah magacaygu waa deeqay Ibrahim dhaqane maanta u soo dhamaatay jaamacadda islaamiya بعد 4 سنوات الحمد لله إله ما تسكر أد يا دام فرح سنة الحمد لله وحي قد قنتها ما شاء الله فرحتي وهويني إن دريمة نور شيءتي يكملتها الحمد لله أدي إلهي وين واحد كان رقم هذا علمها ثم جامعة الإسلامية هو يسوع انتس معناها جهد يقول بحسن معناها إيوه والدينتي أهل كدمان ويسوع رجلي أنت كقيب قاعدتي ugu horeeyay Cabdiraxmaan Cali Xaaji oo hadaba aan macnaha aan wada joogno aan macnaha aan ka wada takarrujayno jaamacadda alxamdulillah waxyaalaha marka aan rabo inaan maanta aan meesha uga faa'iideysto waxa kamid ah family markay yihiin family marka leeyahay wax ka fiican runtii inay jirin ayaan idin qiraaya marka dadka maadaama waxbarashada dhadhan ay u yeelanaysaa marka habeentii 8 saac soo kacdaan wardi waxoogaa ay akhrisataan masaa'il diin u fadhiistaan niqaashtaan bariis imtixaan ay leeyihiin dhadhan gaar ay leedahay aad iyo aad u dhiirigelinahay qof soo diin bartay ama macna qof takhasus soo leedahay ana waxaan bartay bahda waxbarashada ka soo baxay saayin shay macallin ahay waxaan ku bartay meel kala duwan aan runtii aan jaamacad kala duwan iyo kulliye kala duwan ka dhigaa waxaan xusuustaa marka kulliyadaha sayniska dadka bartay iyo engineering iyo wax la hilmaamo waxaa muhiim ah inuu qofku wuxuu bartay ku apply gareeyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankeena inuu ku apply gareeyo waxaan aniga akhriyaa ardayda way yaqaanaan kulli way qiri karaan markaan example bixinayo waxaan jeclahay inaan ku saleeyo ayad quraan ay xadiis inaan ku saleeyo oo aan ku saleeyno su'aashaas iyo tasawuraha inaan u soo qaato ayad quraan iyo xadiis inaan ku saleeyo theory kasto iyo practice kasto wax ka soo dhigay marka macallimiinta waan kula talinayaa inay taas ka dhigaan saas oo dacwada loo fidiyo inaan ducada wada noqonan aad muhiim noogu tahay ani maanta wixii laga bilaabo waxaan rabaa inaan u soo jeesano inuu qof kastaba maxaa diinta u tartay wadaadaha oo tabliiqa waxa ka soo faa'iideystay waxay ducadooda waxa kamid ah ilaahay ha naga dhigo kuwa diintiisa u isticmaalo laakiin ilaahay diinta noo isticmaalo wax fiican waaye oo ilaahay diinta ku quweeyo oo diinta aad noqoto adeega diinada noqoto bulsho kasta qof kasta waa ku dhiirigelinaa waan arintaas waan ku xamaasadeynaa waan ku tashjiicinaa maxaan ku dhahay ilaahayna garabka uu istaaga runtii kulli anigu dadka waxbarashada iska jecel ilaahay ku hanuuniyo baan ahaa taas waxay ii suurtagelisay inaan anigoo oo family ah oo waliba xamli ah inaan aan macad sunna bilaabo asaguna oo soo jeedinta wax kala ahaa بعدنا عن وضع دبر أضيقه مركز تو أمان كأملا أمان نها ظروف سو لسه درستنا عن دبر أضيقه إنها مكهرن التحنك كلي بدنا مر قاركود عشرتين التحنك كلي كقيب قلو
alxamdulilah kolley aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana juhdi oo aad iyo aad ilaahay igu guuleeyey weeyaan gabar markay waxbarasho ay reer yeelato iyo markay reer lahayn caqabadaha ugu badan markay reer yeelato caqabadaha runtii ilma imaanayo umula la galaa ani marka xoogaa runtii waxaan xusuusaa jaamacadda aadan ila tacaamul jiray laano gabadhu laba ilmood ay ku dhashay intay ay wax baranaysay labada ilmood ay dhashay caqabado badan ay runtii lahaayeen oo foolshay caqabad ay ahayd umulitaanka caqabad u ahaa ilaahay amarkiis waxaan la noolaa oo dad ehel ah hooyooyinaan la joogay walaalayaal la joogay aad loo saacidi jiray hooyo Khadiijo oo deeqo hooyadeed ah hooyadii labaad wayna saacidi jirtay wayna la joogtay inta ilmahaas inta ayadana la joogtay inta badan inta waxbarashada ku jirnay dad walaalo ah sida walaashay ayaan oo kaleeto walaashay bishaar oo kaleeto reer Ibrahim oo qowso deeqay ka dhalatay aad loo saacidi jiray marka dad ehel oo qaraabo ah iyo dad kale runtii waxaas dhan waxay saacidi karaan marka iyo inaad hard decision qaadato dadka qaarkood oo kale ninka waxa laga inuu dhornaa wiilka dayacina waxbarashada dayac inay gaadho markay gaadho wiilku uu soo koriyo waxbarashada laakiin wiligeed lama helo jaanis fursado waaye markaas oo kale caqabadahaas waxa loogu gudbi karaa isaacidaataanka mid kale ana cashirka tagi jiray u soo qaadi jiray markaas guriga toormada u akhrin jiray maadaama isgulaas ahayn taas wayna saacidi jirtay oo runtii ana marka qaarkood oo kale marka ayada tagi weydo ana tagi jiray la soo xaadiri jiray marka alxamdulillah runtii caqabadahaas waxa loogu gudbi karaa iskaashiga isku sabirtaanka isfahanka ayaa wax badan loogu gudbi karaa dhinac kasta uu iga saacidi jiray heer aniga hadda waxaan jaamacadda ka soo qalinjibiyay aanan garanaynba meelshii xafiisyadii oo ama maxaan ku raadin la iska soo xaadirin jiray ama dacwada markii wax dhacaan oo kale ama qaayb kugu dhaca tagi jirtay ama qarashka lagu soo bixin jiray anaan aqoonan ilaa hadda aan ka soo jaamacadda ka soo qorjay oo asagoo iga dabari jiray iga filnaa waxa dhici jirtay in imtixaamaadkii soo dhow aan umulo casharada igu soo celiyaan imtixaanka kaliya soo fariisto markii oo guriga de wixii baahi oo ka jirtana inta karaankiisa uu igala qayb qaadan jiray gabar wax baratay bulsho wax baratay hooyada hadii la diyaariyo waxay diyaarsaa bulsho aad iyo aad u fiican ay soo saartaa hadii aad rabto ummad horumarkeeda waxa laga fiiriyaa gabdhaheeda horumarkooda gabdhuhu waxna way baran karaan si walbaba wax adag adduunkan ma jiro bini'aadanka wax walba ka adag bini'aadanka Ilaahay wuxuu siiyay quwad hadii uu adeegsado laakiin niyada inaad u sheegto weeyaan Ilaahay inaad tala saarato anigu waxaan aaminsanahay hooyada in wax baro in wax la baro hadii hooyada wax la baro ayada ilmaha ka kaafinayso ayada ilmaha u akhrinayso quraankii ayada diintii u akhrinayso ayada salaadii ka toosinayso ayada wax walba ka dhisaysa macnaha aabuhu guriga iyo banaanka isuma qaban karo laakiin hooyadu inay wax barato oo lagu dhiirigeliyo oo lagu tirtirsiyo oo wax baro la dhaho berito ayadana waa isku anfacee ilmaheeda ku anfacee aayaheeda mustaqbalkeeda ku anfacee marka runtii gabdhaha waxa la baro anigu saan aaminsanahay waxa waay haday kula dhalatay hadaad dhashay hadaad anigu walaasha jaamacada ka baxday igu horeysay walaalahay wax wada barteen waa waxbarashadu waa muhiim xaaskayna saasaan wax u baray ana jeclahay in waxbarashada lagu dhiirigeliyo gabdhaha markii aad dad kugu garab istaaga oo ama maxaan ku rahay family ama maxaan ku rahay adiga dadka kula nolosha kula qaybsanayaan oo way ka si fiican tahay fursad ka si wanaagsan baa haystaa oo lagu weydiin doona ba aakhirka oo adiga hadhow kugu noqon doonta xujo kugu noqon doonta marka inaad ka faa'iideysato weeyaan saas darteed anigu waxaan aaminsanahay dadka waxbarashada inay wax keento maane khasaare ma keenayso marka waxbarashada waan ku dhiirigelinayaa gabdhaha caqabadna ma noqonayso caqabada yarta waxa laga yaabaa wax yar oo dayacmay iyo wax yar oo halaabay iyo waxaas waxa imaanaya ka fiican kana khayr badan gabdhuhu markay banaanka u baxaan wax soo bartaan macallimiinta dhibka ay marayaan arkaan waxay dareemaysaa gabadhu waxay dareemaysaa ninkeeda dhibka uu soo marayo markay aragto macallinka ayada casharka u dhigay dhibka uu marayo markay aragto iyo dhibka banaanka ka jira iyo maxaan ku raadayay waxyaabaha dhacaya markay aragto way ku xisaabtamaysaa wax badan ay ku qabsan jirtay gabdhaas guriga iska joogto isleedahay ninka xilligan oo kaleeto uu iska maqan yahay xilligan oo kaleeto waxaan jirin buu ku maqan yahay waxa laga yaabaa inay daar badan u samaysaa dhici karto wax badan bay ogaanaysaa in ogeyn oo hadhow laga yaabo inay ka ignore garayso iskaga gudubto wax badan ay su'aali jirtay wax badan oo dhib oo dhici jiray ayaa halka ka badbaadaya isleeyahay